Okay, waa Fadxi iyo barnaamijkeenii aqoon wadaag ee ku bixi jiray afka Soomaaliga. Maanta waa March 12 Jimca, maalin Jimca ah. Barnaamijka aan sii wadayna waa Bitcoin, cryptocurrency iyo marketka waxa ka jiraba ayaan ka hadli doonaa. Si degdegana uga hadli doonaa. Hopefully waxaan rajaynaynaa inuu noqdo barnaamij joogtayn leh, as long as dadku hadday ay noqdaan u arka dee wax sii soconaya. Isku daynaa bal inaan joogtayno inkastoo waqtiyo badan aan karin. Waayahay maanta this week amba toddobaadkan amba dhowrka cisho ugu dambeysay maxaa kusoo biiray dadweynaha. Waxaa kusoo biiray dowladda Biden, dowladda Mareykanka, madaxweynaha Biden iyo xulafadiisa. 1.9 nearly 2 trillion maaha billions, waa I think it's 2000 billions oo dollar iyay daabacayaan. So lacagta see lagu sameeyaa Mareykanka marka la daabacayo ma berigii hore dee pegging waxay ahayd halkii dollar wax hal dahab u dhigma ayaa banka dhexe ooli jiray. I think 1975 76 1976 ayaa taa la joojiyey oo ma jirto imika lacagta Mareykanka lacag dahab u dhigma bankiga dhexe ma yaalo. Marka waxay ka dhigan tahay lacagtan imika ay daabaceenay Congresska la mariyey 11 of March waxaan u malayaa shalay waa lacag ziyaada. It's just a fictitious money, lacag Mareykanku iska daabacay. Marka economically waa lacag kusoo biirtay. Taasina fikir ahaan aniga waxaan aaminsanahay inay mar haddii lacagtu ayna sal lahayn, base ayna lahayn, lagu daabacay ay dulsaar tahay, inay waxyaabo badan inflation ku ridi doonto oo waxyaabo badan oo lacagta intii joogay uu ka qaaliyoobi doono. Maybe saasaan u malaynaa. Marka in terms of markaan ka hadlayno bal cryptocurrency iyo marketka, waxaan u malayaa website-keenii barnaamijkii hore aan kusoo daabacay lahaa is one of the recommendation meelaha laga eego website-ka Bitcoin iyo waxaasi. Oo haddayna intan ku jirin oo dadka aad tiraahdo meel baan ka iibsanayaa waa lagu dhacay, is a scam. Kuwanbaba waxaana main chain oona kuwan la tijaabin intaa boqolka ugu horeysa meelaha 10ka ugu horeysa aduu intaa ugu horeysa mooyane inta kaleba waxaa dhici karta inay scam yihiin, laakiin waxa intan hubaala waxay soo jiray aanan ahayn u badnayn scam. Marka fikir ahaan aniga Fadxi waxay la tahay lacagta Mareykanka daabacay ee imika soo gali doonta shicibkuna lacag bilaash markay helaan waxay u badan tahay inay qayb soo gaadho cryptocurrency oo shicib isku dayaan inay iibsadaan. That means as well inay companyyaal iyo shirkado badan oo lacaga iyaguna bilaash saa loo bixiyey in iyaguna ay investment ku sameeyaan. Waayo halkii Bitcoin marka la sameynayo bilaash laguma sameeyo. Bitcoin-ka bilaash laguma sameeyo, maaha sida lacagta Mareykanka bilaash lagu sameeyo. Waa mining baa la sameeyaa, computer badan baa yaa electricity badan isticmaala. Average 22,000 iyo qaata halkii Bitcoin in lagu sameeyo. Inkastoo imika waan eegi doonaa, laakiin waxaan ogaa inay maanta wuxuu yahay 60 wuxuu yahay maanta mise 56,000 buu yahay halkii Bitcoin lacag u dhigmata haddayna nearly gaadhaysa oo ku dhawaada iyo lagu daabacaa.
marka bilaash laguma sameeyo. Marka lacag dollar bilaash lagu sameeyo iyo bitcoin oo electricity iyo lagu sameeyo juhdi badan la geliyo si loo sameeyo isku qiimo maaha. marka shirkado badan iyo adduunaha imika fikradda waxa weeyaan waxay yidhahdaan bitcoin is a hard money. waa sida dahabka iron laguma helo. And for that reason ujeedada aawadeedna inay lacagtu halkan iman doonto ayaan markaa rajaynaynaa weegaga soo socda, bilaha soo socda, ugu yaraan ayaan rajaynaynaa. Okay, taasi waa the first opinion, fikirkayga. Okay, waxa kaloo imika sanadadan jiray oo ka bilaabmay wax la yidhaahdo CryptoKitties wax la yidhaahdo oo 2018kii baan u maleeyaa ay ahayd mukulaalo bisado la sameeyo oo la carbisto oo Ethereum chainka Ethereum lagu carbin jiray oo lacag badan mar gaadhay. waxaa lagu sameeyaa technology la yidhaahdo amba Ethereum's ERC-721. marka kaasaa imikana it looks like imika lately dhowrkii bilood ugu dambeysay aad dadku ay ka waramaan ay imika lacag badan ay gashaa. marka Soomaalida waxaan la wadaagayaa people that basically follow. There's not that many people who follows the channel. Hopefully they will follow. But لكن that can la qaybsado and look at it. واحد 18 واحد هذا non-fungible token. Yeah? Non-fungible token and ERC-71 non-fungible tokens. محو يهي what is a non-fungible token? محو يهي waxaa loo isticmaalaa shay kasta to make it unique, inuu ahaado shay aana shay kale u dhigman. imika anigoo kale ma jiro adduunka, unique baan ahay. markaa sidaasi aawadeed iyaa la sameeyey technology amba wax la yidhaahdo token la yidhaahdo non-fungible oonan qofka la qaybsanin. and this type of token markaa waxaa loogu talaga tokenyadan is perfect to be used on platforms that offer collectible items. shaydada internetka lagu iibsado inuu ka dhiga shay kaste wax gaara inuu noqdo. marka halkan waxaa markaa Google ku qortiinbaba ERC-721 non-fungible token waad arki doontiin, especially website-ka Ethereum halkaa ka akhrista. laakiin waxaan doonayaa inay tuso bal gaaladan inay waala yihiin. waxaan tusi doonaa shay sida loo isticmaalayo iyo heerka waalida ay gaadhay. okay, maxay tahay filekaasi ma arkaysiin? filekaasi wuxuu yahay haddaan eego get info waa JPEG image, waa sawir JPEG weeyaan. sawirkaasoo muxuu yahay? bal sawirkaa aynu tusay waa kan sawirkii oo contractka Ethereum la geliyey. waxaa lagu iibsaday shalay 69 million 69 malyuun ayaa lagu iibsaday auctionkaasi. waa sawir amba copy waan samayn karaa, save as samayn karaa, copy waan samayn karaa, copy waan ka samayn karaa. laakiin contractka blockchain-ka la geliyey ayaa ka dhigay markaa ninkii sameeyey waa arts people ayaa sameeyey, waa wax arta and wallet address buu leeyahay, smart contract oo caddaynaya inuu unique yahay una qof kale haysan sawirkaasi. and sawirka originalka maaha ilaa aniguba waan haystaa waan igayna tusee
copy baan haystaa moogta sawirade laakiin kii unique runta ahaa contract addresskaasaa iyo ku xidhan yahay filekuna waa saa inii sheega waa jpeg file waxaa la minted waxaa la sameeyey 16 February suuqaa la keenay 69 million baa lagu iibsaday 69 million waayahay NFT-ga cryptocurrency imika aad u shaqeynaya waxaan tusi doonaa meelaha suuqa lagu iibiyo website-ka lagu iibiyo OpenSea la iska badaaba kani sawirkan wuuba iska yar qurux badnaayo mooyan dee waxaa la odhan kartaa waa art got pictures wuxuu leeyahay sawiro coloro I don't know waxaan gaaladaa jecel mogta soomaaliduna dhici karta kuwa waalin inay jecel yihiin oo jeclaan karaan amba dadkan cusub ee dhalinyarta kale imika dhulkan ku dhalatay laakiin anaka dadka Afrika kusoo koray ku dhashay waxaan micno iima laho waayahay kan bal waa yar qurux badan bal kan eeg OpenSea tag sawirkaasi ikaa madow waa CryptoPunk macal si fiican looma sawiran imisaa la siistay just have a look yar eega waa la iibiyey waxaa la iibiyey half an hour ago sold 39 ETH waa imisa u dhigmataa yar eeg contract wuu dhacay waqtigan buu dhacay 69,000 $69,000 baa la siistay waba guri idilbaba aan ka dhisi karo Africa transaction fee waxaa la qaaday khidmadiina waxaa la qaaday 17 gin wali laakiin de adduunka hadday waalidu dadku ka bateen keligaa ma qumananaysid iska raacun marka sidee marka how can we take this opportunity sidee bal anakuna aan waxaan kaga qayb geli karnaa marka CoinGecko haddaad tagtid tab waxaa jirta imika la sameeyey NFT la dhahdo could have an NFT wuxuu ku tusayaa tokenada NFT-ga isku mashquulisaysa samaysa non-fungible tokens waxaan kala iibsanayo marka waalida marka arkay bay moogtahay why not I'm just super fun jirta ay ma jirto laakiin come on super fun tabkan may soo galeen laakiin uu jiraa super fun isaguna waxa weyn waa kan oo isaguna NFT cusub iyaan meelaha 100 iyo 200 aan bal yiri moogtay waxaan ani micno ima sameynaysa laakiin gaaladii mar hadday ku waasheen okay just try nasa sayaan moogtay anyway we'll look at it one eegi doonaa bal wuxuu ku kordho is 1.75 habadii waxa la siinayaa super farm 1.74 we'll see aan sa soconaynaa it's part of our journey haddaan bal waqti wada qaadan maanta bitcoin ku iska dhacsan yahay -1% laakiin wiigii 16% buu sare u kacsanaa hopefully waan geli lacagna ay soo socotaa waan eegi doonaa okay lastly barnaamijkeena waxaan kusoo gabagabaynaynaa let's have a look saaxiibadeen Somali Sport business area maxay ka sheekeyneen the reason kuwan aan xilli kasta inii refer garanayo okay comment ka igu soo qor haddii jirto meelo kale amba Facebook group jiro amba WhatsApp group ay dad ka sheekeeyaan anu Clubhouse ma haysto because I go Android ma hi re iPhone mehi laakiin alala markuu app ka yimaado Android will have a look laakiin hadday meelo kale ka jiraan iso tilmaama bal kuwaasan iyaan la socon doona laakiin Somali Sport is one of the few people and meelaha ka arko in iyagu the more clued up ay la socdaan trendka iyo waxa adduunka ka socda
So let's have a look. Marketka caadiga Wall Street GameStop maxay yidhaahdeen since last time kan waan ka hadalnay rug pull baa la yidhahdaa GameStop yar kacay waxaase ka sheekeeyeen okay nothing going on there waxba xagga kama socdaan cryptocurrency maxay yidhaahdeen ilaa iyo waqtigii okay cryptocurrency hbar kan anu xoogaa yar baan ka haystaa laakiin isaba waqti maan anu haystay hbar Hedera Hashgraph blockchain maaha kani waxa weeyaan is just technology-gu isticmaalo waxa la yidhahdaa whispering amba waxa la yidhahdaa xanta waa xan message-ka laisdhegeysanayo computer isdhegeysanaya and it doesn't create a blockchain ma sameynayo blockchain waa technology kaloo cusub problemku maaha decentralized waxa waa very centralized laakiin maxaa ka qosay technology cusub yahay waa adiga arkaya okay 9 cisho okay 3 bilo gudaheeda uu kacay so it's profitable we'll see kaasina qofkaasi inay gabadh wuxuu yahayba kaasuu ka hadlay okay waxay ka hadleen oo kale Tether oo iyaguna print garanaya lacaga badan oo okay who cares de lacagta sameeyaan as long as ay iibsanayaan bitcoins waa bitcoin baa kicin doonaan de lacagtan ma fake ba ma khalad ba iyaga u taala as long as the money is coming to bitcoin bitcoin da imanayso dadkii bitcoin haystay way u kordhaysaa lacagtooda okay waxaa la dhahdaa a bit of trading and your graphs iyo maxaasi okay qofkan wuxuu ka hadlay bitcoin markii la bilaabay qofkii ugu horreeyey website-kii markii hore ka hadlay Reddit aad baa loo necbaystay dadku waxay yidhahdaan waxaan waxa la yidhaha magic money waxa waa lacag internetka ku jirto waxa la lacag indhasicraad waa magic money laakiin hadda waa hadda sare u kacday okay kanna wuxuu ka hadlay wax fiican noloshu waxa weeyaan markaa dhalatay wadooyin badan baa raaci kartay you made a choice oo nasiibkaaga amba ilaahay wuxuu kuu qoray inaad meel martid hadda halkan baad joogtaa and you got all these opportunities and choice to take it marka insha allah badhana kan ugu xidhanta badhna waa nasiibka insha allah ilaahay ka dhigo nasiibkeena dad wanaagsan aana balwad lahayn kind of clean we want to be clean Soomaali markaana no drugs no tattoos no bullshit adduunkana saasaan kaga baxayna okay insha allah hopefully that's the Somali way okay breaking news crypto exchange Binance waxa weeyaan exchange-ka ugu weyn adduunka Mareykanka ayaa eegaya Mareykanku Tether buu eegay company badan way eegan markii dib way isla heshiiyeen oo couple of million bay bixiyeen and I think it's the same thing Tether lacag yar baa laga qaaday Binance waa billions dollars bay haysataa way iska they will settle way heshiinayaan aanu malayn maybe uma malaya inay Binance-ku for the time being waqtigan aan joogna inay hoos u dhici doonto amba khalkhal ku jirto hopefully inkastoo qofkan Binance coin wuxuu yidhi coinkaasi qofkii haysta BNP hoos buu dhici doona 24 hourskii minus 10 buu ayuu dhacay hadda inkastoo soo kordhayo we will see possible okay maxay kale ka hadleen ma arkayo waxay kale ka hadleen okay qofkan wuxuu yiri chow baan iibsaday laakiin muxuu iibsaday wuu fiican yahay hadda rutiisa beentiisa 3 eat
waa 6,000 waaba nin lacag haystaba jojo muxuu yahay jojo finance 41% uga taajiriba already wuxuu socdaaba lacagtiisii way kacday we'll see maxay tahay jojo finance it looks like a kelmadaha markaan anu arkaba earning passive incomes scam xaafada iska fadhiya passive what is it what is so unique tell me what is so unique about this huh? You tell me what is so unique who cares in scam yahay kale as long as he's making money we'll see aan la soconayna inkastoo Soomaalidu been badan yihiin oo we never know if he did that wallahu a'lam 3 times 2 nearly 2000 imsu jooga Ethereum 1700 nearly $2,000 times 3 6,000 lacag iska tuuro waa nin lacag haysta okay well so good then okay that's a bit of coverage for Somali sport wax kala de groupka dhinacaasi I'm more interested in this section of that side will follow okay so let me know group do Facebook jiro in the comments and what else where could it be WhatsApp group yeah there is no sheekaysto I will attend what is the point adduunka u joogna let's have adduunkan waxa ka socda hana qabsano Soomaali and let's learn from each other waxyaabo badan oo waxa jirta scam la isdhacayo let's have a look gaaladu meel bay u socotaa adduunuhu gaalo iyo indha yar iyo yuhuud iyo balaayadan dhul bay ku socdaan waan la joognaa let's go along with them annakuna ku miilmeyn annakuna noqonayn aan ku dhexlumayn annakii Soomaaliya aan la qabsano okay so that's the end of my today video see you later bye bye